ani ma aha fanaan haysa oo taageerayaashiisu isugu soo baxeen soo dhaweyntiisa balse waa tiktoker saameyn ku yeeshay hal eray oo uu daa'intay adeegsigiisa kaas oo ah waa sheeko kale Ilyas Liibaan Xasan oo Muqdisho shalay yimid waxaa soo dhaweyntiisa ka sokow madasha buux dhaafiyay dad raba inay sawiro la galaan sidoo kalena ku taageera muuqaaladiisa yaryar ee uu ka diyaariyo arrimaha bulshada ninkan aan xaragayn ee madaxa u xiirtay sida dhukuran ee naadirka ay tahay in qof dhalinyaro ah uu ku dhiirto waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa Muqdisho iyo in dadku ay ka helaan muuqaaladiisa ee uu ku faafiyo TikTok wallahi عشان waxa uu talagalay ma ahayn ama waxa dhahay samay ama naqo ma ahayn just wax ilaahay ka dhigay in qatay ama ilaahay عشان suurta gali in dhacdo ma waxa uu talagalay oo sameeyay ma ahayn say ku dhacday markii aad aan noqoto maxaad samaysay wala dadaal fara badan aan sameeyay leeku naqanay kawar marka caanimada wax dhibaato ma jiraayo bulshada kala kulanto wax farxada ma ogiye dhibaato ma kala kulmin Ilyas wuxuu xusay inuu rabo inuu Muqdisho ka soo gudbiyo muuqaalo qurux badan sidoo kalena uu ka diyaariyo barnaamijyo dadka ku xiran iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed baajibiya oo qaarkood taageeraya dhinaca dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed dhalinyarada ugu caansan barta TikTok ayaa soo dhaweeyay xidigan da'da yar ee mar ay Kenya ku ahaayeen saaxiibada waxayna balan qaadeen inay Muqdisho ka dhigan doonaan xaruntooda ugu badnaan TikTokeradan waxay ku noolaayeen Kenya halkaas oo ay muuqaalada qoobka ciyaarka heesaha iyo jiliinkaba ka soo gudbin jireen hase ahaatee hadda oo Muqdisho ay yimaadeen waxay sheegeen inay barnaamijyadooda ku saleyn doonaan waxyaabaha dhaqanka xoojinaya sidoo kalena ay ka feejignaan doonaan xumaan iyo wax kasta oo dhaqan dooris xambaarsanba wala kullu in sha Allah salaama ni hal maan le dhacdiniyo meesh maas ay bilawtay ilaa hadda soctaabo sibu waliba shacabka gadan sheekale maani waxa iska dhaheed markay wada qabsadana sida ku waday dib ma kala kulmo farxad hore u sheego farxad ma u yeedib kama kulmin ma sha Allah